timihiisa uu feedhan karaa, ilkaha uu cadayan karaa, garka uu iska xiri karaa, sidoo kalena telefoonka uu ka jawaabi karaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa Cabdishakuur Maxamed Xarbi, kusoo dhawow barnaamijka Baraarug. Dadku badanaa markay la kulmaan duruufo adag iyo waqti adag waxay qaataan laba go'aan midkood: inay ka rajo dhigaan nolosha oo isdhiibaan, iyo inay la dagaalamaan duruufaha waqtiga adagna ay xal waara u heli lahaayeen. waana tamar walba keentaa qofka mustaqbalkiisu nooc u ekaanayo. labadaasi go'aan uu qofku qaadanayo. Nick Vujicic wuxuu dhashay 1982 wuxuuna ku dhashay Melbourne oo ku taala waddankaasi Australia. Nick wuxuu ku dhashay xanuun marmar iyo dhif bini'aadamka lagu arko, kaasoo ah isagoon lahayn laba gacmood iyo sidoo kale laba lugood aan lahayn. Hooyadii markii aragtay way naxday, waxayna diidayba inay qabato. Kalkaalisada ayaa muddo haysay. Markii dambe hooyadii waxay ku qanacday in markaasi ay qabato oo ay sidaasi curyaannimadiisa ay ku qaadato. Inkastoo sharciyada waddanka Australia u yaalay aanay Nick u suura gelin inuu ku biiro iskuul fiican, haddana markii la ogolaaday wuxuu cadaadis iyo xoog sheegasho kala kulmay ardaydii iyo carruurtii markaasi isku fasalka ahaayeen, isku facana ahaayeen. Markuu 8 jir ahaa, nolosha murugo iyo dhibaato badan ayuu la kulmay. 10 jir markuu gaaray wuxuu isku dayay noloshaasi murugada badan inuu ka tago oo inuu isdilo markaasi isku dayay. Nick wuxuu hamigiisu ahaa inuu ku noolaado nolol guul leh, isla markaana uu ka gudbo duruufaha iyo xaaladda adag ee markaasi ku jiray. Inkasta aanu lahayn wax gacmo ah iyo sidoo kale lugo, haddana uma fikirin sidaas. Cagtiisa dhumucda yar ee ku yaalan labada farood ayaa waxay ku hogaamisay nolol barwaaqo leh. Wuxuu bartay sida loo isticmaalo kombiyuutarka, wuxuuna halkii minid qori karaa 40 xaraf. Wuxuu bartay sida loo tuuro tenniska, timihiisa uu feedhan karaa, ilkaha uu cadayan karaa, garka uu iska xiri karaa, sidoo kalena telefoonka uu ka jawaabi karaa. Wuxuu sidoo kale yaqaanaa qaybaha kala duwan ee ciyaaraha sida golfska iyo sidoo kale sida loo dabaasho oo kaliya asagoo dabaalanaya. Sidoo kale wuxuu ka diyaariyay 2 bachelor degree culuumta xisaabaadka iyo sidoo kale dhaqaalaha. Nick wuxuu ku guuleystay inuu noqdo qof dhiirigeliya dadka, wuxuuna markaasi u socdaalay adduunkoo dhan 44 waddan. wuxuu markaasi ka hor khudbadeeyay malaayiin iyo balaayiin qof oo markaasi soo hor fadhiya, isagoo markaasi ku dhiirigelinayay siday u rumayn lahaayeen riyooyinka uu qof kasta leeyahay. hadalladiisa ugu caansan markuu dadka dhiirigelinayana waxaa ka mid ah: Make today count. Dream big and never give up. waa hadallada ugu caansan oo markasta markuu dadka soo hor istaago uu u sheego. Markii dambe wuxuu asaasay urur la dhaho Life Without Limits. sidoo kale wuxuu asaasay shirkad loo yaqaano Attitude is Altitude. 2005 waxaa loo magacaabay abaalmarinta dhalinta Australia. sidoo kale 2002 wuxuu guursaday Anya Miyara oo markaasi u dhashay 2 carruur ah. sheekada Nick waxaan ka baranaynaa in daciifnimadu markaasi ay ku dhacdo qalbiga aanaysan laakiin ahayn jirka sida wanaagsan u shaqayn waaya. waxaad arkaysaa isagoon 2 gacmood iyo 2 lugood toona lahayn, haddana inuu milyaneer yahay, dhiirigeliyaa weyn yahay. inagoon eegayn diintiisa iyo isagoo gaal ah oon ognahay, haddana inagu waxaan ka qaadanaa qaybta wanaagsan ayaynu ka qaadanaa Nick, oo aynu nolosha uu maanta ku guuleystay intaasoo milyan oo sameeyey. waxay tahay inaad nolosha rajo dhigin si kastoo ay caqabado iyo duruufo adag ay ku haystaan. ha rajo dhigin guusha waad gaadhaysaa, kaliya ta ka daba carariyooyinkaaga oo eegin waxaanad haysan, laakiin waxaad eegtaa waxaad haysato sidii aad uga samayn lahayd mustaqbal san iyo sidoo kale meelo wanaagsan iyo riyooyinkaagii uga rumayn lahayd. intaas ayaan ku dhaafayaa barnaamijka Baraarug. haddii aad ka heshay barnaamijka Baraarug, fadlan taabo subscribe si aad mar walba u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aanu halkan soo gelino. sidoo kale haddii aad page-ka nagala socoto, like dheh si aad mar walba u noqoto qofka ugu horeeya ee arka barnaamijka aan soo dhigno. mahadsanid sida wanaagsan aad markasta noogu dhiirigeliso. waxa wanaagsan wixii fikradaad markaasi haysaanna halkan igu soo gudbiya. aad baad u mahadsantihiin.